magaalada Hargeysa waxaa munaasabad ballaaran loogu sameeyay arday dhamaysatay culumta shareecada ee maxadul dacwa waxaana xafladani ka soo qayb galay mas'uuliyiin waalidiin iyo waliba marti sharaf kale ugu horreeyna maamulaha dugsigani oo goobta ka hadlay waxa uu ka sheekeeyay maraaxilkii maxadkani soo maray waxay ku tusaysaa qofka bilaadanka hadii maskaxdiisa la tuujiyo ama uu tuujiyo inuu ibdaacaad iyo waxyaabo badan oo kala duwan ay ka soo burqanayaan يعني waa 26 arday oo ma garanaysa ayaa maanta inamada baxay hablahana dhowr iyo konton ayaa baxay oo maanta dhamaystay qaybtii ay soo wadeen macadka 3 sanadood yani markay 26 qof ku jiraan ilaa 3 qof oo gabaygii taaliifayo oo bilaabaya iyo qof qasiida uu doono 100 bayda dabada qabsanayo haddaan laga joojin wadaya waxay ku tusaysaa xifdiga iyo qofku hadduu awoodiisa maskaxeed tuujiyo oo ka dhaliyo oo uu ka qayb maartay tafciiliyo in ay waxa weeyaan wax badan ay markaa keenayso ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaynu uga baryeynaa inuu dhalinyartaas maskaxdooda ay ka faa'iideeyaan oo ay xifdiga iyo barashada diinta uga sii faa'iideeyaan iyagoo waliba akhlaaqiyadka ay soo jeedinayeen iyo gabayada ay soo jeedinayeen ee akhlaaqiyadka xambaarsan iyo aadaabta loo baahan yahay kaashanaya oo waxa weeyaan runtii taa ka dhiganaya saad culimo kale oo madasha hadalka iskaga kala dambeeyay waxay iftiimiyeen ahmiyadda culumta shareecadu leedahay ladan qiimaha leh ee aynu ku bogaadinayno inamadeenna iyo hablaheena bartay shareecadii iyo diintii ee maanta takharrujaya inaynu xafladoodii ka soo qayb galnaa runtii farxad weyn bay aniga iyo dhammaanteen baynoo wada tahay waray walaalayaal ilaahay baynu u mahadnaqaynaayo wixii nicmo aynu haysanno oo nicmada iimaanka iyo islaamnimadu ay ugu horrayso oo nimcada amniga iyo nabadgelyada aynu wax ku baranaynaa ay ka mid tahay allahaas ayaynu u mahadnaqaynaa ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa nicmooyinka inuu ilaahay inoo sii siyaadiyo waxaan idin leeyahay marka horeysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala cilmiga heerka la soo gaadhay ha idin barakeeyo kuwii cilmiga naftoodana ku anfaca ummadoodana ku anfaca kuna dhaqma faafiya meel kastana gaadhsiiya ilaahay idinka dhigo waana idinku hambalyeynaya inta darajooyinka sare gaadhay iyo inta ku baastay imtixaanadii muasasada karam kolley horena waa maqasheen waana ka wada dheregsantihiin waxa kulmiyaa waxa weeyaan arrinta dacwadeedu oo mahadkuna sida magaciisa ka muuqata waxa uu xil saaran yahay yani dacwadda oo qofku diinta inuu u barto maaha yani waxa weeyaan guriga uu la fadhiisto sidii hore loo tilmaamay culimadii horeysa u tilmaameen macaahidaas oo in badan markii hore magaalooyinkeena waaweyn ka furantay oo si habqama iskaga furantay inay u fikiraan culimadu in macaahidaasi la mideeyo dhinacyo badan xagga manhajka iyo waxa ay dhiganayaan oo manhaj wada shaqaynaya oo isla socda wasiirada kala kalluumaysiga iyo diinta iyo awqaafta oo ardayda la hadlay waxay sheegeen ilaahay waxaan leenahay cilmigoodaas ha u barakeeyo miday dalka iyo dadkaba ku anfacaan allah ka dhigo ilaahay idankiisa kuwa kale oo weli maaragtay ku soo jirana waxaan leenahay idina sidaas oo kale ilaahay ha idin gaarsiiyo xilliga aad ka bixi lahaydeen oo dhammayn lahaydeen dacwadu sidii la sheegay culimmadu sheegtay dee waa min almahd ila alluxd ma dhammaato macadkan ujeeddadii loo asaasay oo ahayd in ay ka soo baxaan jiil iyo ummadda wax ka beddesha ummaddan wax ka beddesha oo si mu'asasiya amba si qaab aqoontoodii manhajta loo sameeyo in laysku xidho dabeetana u diyaargarooba siday u faafin lahaayeen diinta xaqa ay barteen iyo caqiid saliimkii ay ku dhisan salafka ummadda iyo maxaan ku dhahdaa ahlu sunna wal jamaaca siday u aamineen dhaqankooduna ka muuqdo aqoontii ay barteen ay ka muuqato Badri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.